أنا soo daawan xalqadii hore oo soo daawa marka hore xalqadiina hore waxay ku dhamaatay kii yara hackerka ahaa oo soo galay kule satellite-ka ugu dambeeyay waxa soo gaadhay ceelad wuxuu ku soo wajahan dhanka dhulka oo wuxuu geysan doonaa khasaare aad u badan kadibna kooxda is diyaarinayaan si uu badbaadiyaan satellite-kaas ugana badbaadiyaan adduunyada haddaba xalqadii hore nooga sii wada asxaabay ee la socda fadlan muuqaalka like saara subscribe soo dhaaf kanaalka soo biira 5k yar wax yar baa nooga dhiman iminkana inoo bilaabo xalqadiina maanta خلوني نعيش حياتي ناخد أنا راحتي لي فاتنا markaas wax meesha soo gala ninkii gaay wuxuu ku yiraahdaa waxaan galaynaa dagaal culus oo la dagaalami doona kooxda GHQ xagaasna waxa ka dhici doonta dhimasho oo waxa ku dhiman doona 2 qof ama 3 qof naga mid ah markaas wiilkaas saraka wuxuu yiraahdaa mar haday khatarta inta leedahay maxaan anagu galaynaa dagaal markaas ku yiraahdaa adiga ah qof ugu dixiysan ee iska fariisto masaara ninka waxana ku yiraahdo ninka waxa lagu magacaabo gaay waana hogaamiyaheena lagu mana taago afka ee fariiso dad wiil daciif ah tayo cabsoonaysid markaas ku yiraahdaa ma cabsoonay laakiin iniga idin naxaya markaas wiilkiina iska soo baxo waxa inuu roobto wiilkiisa iska fikiray qalbigiisa iska eeganaya ayaa waxa imaatay gabadhii noori waxay bilaabeen qalbiga dujisay ku tiraahdo waxaan way dhacaan wiilkan gaayna mar walba hadalada naxdinta badan uu sheegaa ee isdijiyo ka tiraahdaa mas'uul ku aniga mu murugeysani in yani dhibaato soo gaadho laakiin waxaan ka murugeysanay ka waxa inay dhibaato soo gaadho oo aan burburno mas'uul ku tiraahdaa taas macquul maaha oo anaga ka awood badan hub fiican qalab fiican ayaan ka haysanaa kooxdan GHQ oo ka awood badanayna taasna ana ku balan qaadaya ee isdijiyo ku tiraahdaa markaas waxaan arkayna kooxda GHQ oo diyaarinaysa waxayna leeyihiin waxana soo weerari doonta kooxda Barlord waana diyaarinaa kidoo waxna kooxda GHQ inay diyaariyaan markaas waxaan arkayna wiilkeera kibirka badnaa ee xalqadii hore aan ku arkaynay in islaantii ragii yani qaraabadeeda ahaa uu ka dilayay laakiin wiilkii yara waa la badbaadiyaa waxaan dhahay inuu wiilku soo tooso yiraahdo mar labaad ayaan dagaalami doonaa midooga asxaab xalqada hore kuma dhiman oo wiilkii ma dilin ee laakiin dhaawac ayuu ahaa markaas aad wiilkii gaay inuu habeenkiisa sheekaysto yiraahdo mid waxaan geli doonaa dagaal aad u culus markaas wuxuu soo xasuustaa gabadh yar gaabna la dagaalamisay gabadh yar gaabna lahayd wala soo dagaalami doonaa gaay waxa dhacayada laga adkaa loo dilo oo uu gaay madaxa ka toorto gabadh yar xagaasna kaga taqaluso markaas waxa hadalkaas oo maqlay wiilkii yara waxa wiilkii uu soo galo wuxuu ku yiraahdaa gabadh yar daciifada ee dishay markaas aad ku yiraahdo maxaa ka galay wuxuu bilaabay isku gacan qaadaan markaas aad baashire yani calaamada kristanka subxaanallah bahashaas oo dhulkeena ka dhacdo ninkii yani gaay aha kadib wuxuu bilaabay soo qaadaysaa laakiin awood kari waaya kadib waxa soo qaaday wiilkii yara wuxuu ku yiraahdaa qabso mudan hada laga bilaabay waxaan ahay mid ka dambeeya markaas aad dagaalkii bilaabmo waxaan dhahay kooxii GHQ la soo weeraro waxaan soo weerartay kooxii Barlord waxaan dhahay askartii la laayo markaas waxa soo baxay midkaas wuxuu wata gaadhiga wuxuu dul mariyay askartii oo badnayd oo wuxuu bilaabay ka taqaluso markaas waxa dhahay gaay inuu is yiraahdo 2 qof badbaadaysa 2 qofna oo Inori iyo wiilkiisu wuxuu yiraahdaa Inori ayaa la dagaalami doonta kooxin ee iska daa kadib waxa dhahay inuu iskaga yimaado waxaana gabadhi Inori inay dagaalanto oo is adeegsato biskooladeedii markaas waxa ninkii gaay wiilka raashu ku dhaahdo adigu meesha aad orado satellite-ka laga maamulo xagaasna ka qarxi intuu satellite-ku soo gaarin yani adduunyadan oo adduunyadan ku dhex qarxin oo xagaas ay khasaare soo gaari lahayn inta space-ku ku jiraan fadayaad ku jiro ku soo dhex qarxi oo xagaas ka taqalus mas'uul wuxuu bilaabay inuu adeegsado biskoolad wuxuu isku dayay inuu qarxiyo laakiin waxa yimaada kibirka badnaa wuxuu isku dayay inuu koor istaago inuu qarxiyo wiilkan laakiin waxa la dagaalamay gaay oo daqiiqadeed gudaheed ku soo afjara robotkiisa isaga markaas waxa soo sheegtay wuxuu ku yiraahdaa gaay satellite-ka waxa rabay inaan burburiyo laakiin waa laga hor jabsaday oo satellite-ka waxba kama qaban karo kadib waxa dhan satellite-ka soo aado dhankii dhulka markaas hal mar waxa dhacay TV-yadii iyo waxyaabo dadku daawanayeen hal mar ay damaan oo dadka ay ilaahdaan maxaa dhacay markaas waxa yimaada ninkii hogaamiyaha GHQ wuxuu ku yiraahdaa hay saaxiib ka xaaxaabi ku yiraahdaa adiga imika magaalada sabab ah inay burburto kooxda Barlord ee sabab anagu waxaan iska dhigaynaa dad yani badbaadinayay dadkuna nagama sheekinay adawadna wuxuu qaadi doona kooxda Barlord anagu imika waxba kama qaban karno ee hadda satellite-ka ka badbaadin kartiin ka badbaadi magaalada masaar ninkii gaay inuu isku naxo waxaan dadkeen hal mar ay wada gariiraan naxaan yiraahdaan satellite-ka hal mar dhulku imaado maxaa dhici doona waxaan sawirtan khasaaraha imin doona inta dhimashiyo dhaawac imin doonta markaas hal mar waxa dhacay gabadhi Inori la hadasho wiilkeera waxna ku tiraahdaa saaxiib show diyaar ma tahay masoo ku tiraahdaa Inori maxaa sameynaa masoo ku tiraahdaa وفهمي كرتادبا waxa inuu booskoodu haystay iyo safety gabadhii oo soo awal uga saaray inta ka soo saarto ayuu wax isku noqotaa hal safe oo weyn oo aad u culus kadib wuxuu la hadlaa gaay wuxuu ku dhahdaa gaay u banay meesha kadib waxa gaay inuu ku yiraahdo sax baa tahay mika dariiqan reebay ku soo dhacday haddana ka horgeey booskoolada ama safety adeegso oo ka horgeey satellite-ka intuu adduunyada soo gaaray xagaas ku qarxi kadib wuxuu ku dhahaa waayahay kadib waxa dhahay in gaay la hadla gabadhii shaqaalahayd wuxuu ku dhahdaa diirada oo eeg wiilkeen show kadib waxa dhahay gabadhii diirada oo eegto markii diirada isku simeeyay satellite-ka qoriga ba aan wiilku haysto ayaa wax ku
ku tiraahdaa ku sii daa markaas wuxuu bilaa wiilka inuu sii daayo waxaan dhahay satellite isoo dhulka yar usoo jira in hal mar wax lagu celiyaa fadaayadka space markuu aadan xagaas ayuu yacni caadigiisii kusoo laabtaa kadib waxaa TV dadkii waxay wateen oo dhan inay dib caadi kusoo laabtaan oo dadka ay farxaan xagaasna waxaa dhan magaalada laga burburiyo burburkii yacni wixii sababta uu noqon rabay inay burburto magaalada kishu wuxuu soo xasuustaa markii uu yaraa oo hooyadii waqti iskala qaadanayay iyo miskiinimadiisii noloshiisa hore ee ka hor intuu noqon mafiyada markaas wuxuu yiraahdaa nolosheedu way ka deganin marka hore iminkana waxa igu sababay inaan nolosheedu noqoto hal go'aan oo qaatay oo ah inaan kooxda Barlow ku biiro markaas wiilku wuxuu maday iskuulkii wuxuuna la kulmaa arday saxaabiisa waxayna ku yiraahdaan waxa la dagaalameysa kooxda GHQ waxa wiil mafiya yani waxay bilaabeen inay caayaan markaas wuxuu ku yiraahdaa waan ahay mafiya kale waxay ka qaadayeen kadib gabadhii inoo gacanta soo qabtaa waxay bilaabeen iska soo dhaqaaqaan markaas iyagu soo hal mar waxay maqaan ribaaxadana soo gabadhaas waxay ribaaxada ku jiiday ninkii wiilkii shucaayay waxayna ku leedahay waxaana daliil u haysan askaga oran kaas oo in ardayda ixtiraamaan wiilkii waxaana ku soo tulmiyaan waxayna ku yiraahdaan naga waran karno nolosha mafiyada yani waxyaabo su'aalo aan loo baahnayn wiilkii weydiiyaan isagoo necab yahay markaas wuxuu ku yiraahdaa aan nolosha mafiyada waan necbahay waxba iga weydiina fadlan masaara inay wiilkiis ka soo baxo wuxuuna yimaadaa gurigiisii gurigan hadda waxa la nool gabadhii inoori oo la joogta markaas waxa soo gashay gabadh waxayna tiraahdaa shuu see tahay maasa shuu bay soo eegtaa waxayna aragtaa shuu gabadhii yacni qarinaya oo raba inuu isku qariyo iyadoo si khaldan u fahamtay adoo si u fahanto kale markaas waxay ku tiraahdaa igara alaha waqtigiina qaata maasuu ku yiraahdaa waxba ma jiraan marwo ee soo dhow maxaad weydiinaysaa waxay ku tiraahdaa waxaan rabay inaan siisado cunnadaas ama waxaan rabay inaan kugu darso yacni waxaan ku weydiinaya in aadna rabtid maasuu ku yiraahdaa cuntadaas ma doonayo maasuu waxaan la tusay wiilkii uu qubaysanaya wuxuu soo xasuustaa hadalkii hogaamiyihii hore ahaa kooxda Barlow wuxuuna ahaa in kooxda yacni GHQ ka sifeeyeen magaalada maasuu wiilku wuxuu yiraahdaa waan ka sifeyn doonaa maalin maalmaha kamid ah ku soo celin doonaa yacni sharafta allahayd oo maalin maalmaha kamid taalo ay kaga dhisi doonaa yacni Tokyo waxaan arkaynaa kooxda GHQ oo iyagana isdiyaarinaya waxayna leeyihiin markabkan waxaa maanta soo gali doona show iyo kooxdiisa oo yacni kooxda Barlow ay soo gali doonta waxaana soo gali doona shacab aad u badan ku dhawaad 300 oo qof 300 oo qof intooda waa cowboys ama waa lamaane kuwaas oo raba inay waqti ku qaataan bad dusheeda oo yacni chess iyo waxyaabo sameyn doona waxay yiraahdaan waxaan rabnaa inaan ka qasno chess-koogaas oo ku toogano dhulkaas isdiyaariya asxaabid ogaada kooxda GHQ kaliya ma rabto in waddanka caawiso waxay rabtaa in waddanka burburiso dadkuna waxay maleynayaan dad wanaagsan cudurka ka daweynaya laakiin inta fahantay waa inta kooxda Barlow ku jirto waxa soo dhaxay wiilkii shuuna soo galo markabkii markuu xoogaa dhex socdo ayuu waxa arkaa gabadh loo magacaabay Haruka waa gabadhii markii yacni la hadlaysay ku lahayd yacni cunto ay rabeen soo iibsado mase wiilku waxa inuu ka cabsado ka soo cararo ka dhacay yacni ka dhacaya in meeshan ku aad ka dhacaya ku tira markaas wiilkii shuu soo carray wuxuu ku dhacay gabadh waxaana ku tiraahdaa aduu dhamiyaal lahayn xageed noo sheeraysaa mase wax la hadlo gaay wuxuu ku yiraahdaa iska daa kan wuxuu kamid yahay kooxdayda markaas wuxuu dhacay inuu gabadhu maaweeliyo oo yacni ka jeediyo wiilkan bashu iyo ninkan kale inuu macaaba gaay meesha wuxuu yimaadeen oo qorshe ay ka leeyihiin oo kooxda GHQ soo weerarayay og yihiin saadaradeed waxay rabaan inay yacni qaraxni waxay la maagan yihiin ay ka istaajiyaan waxa dhacay inuu ku yiraahdo gaay adaa meesha kugu daayo yacni adaa ilaalin doona maase gaay wuxuu ku yiraahdaa way hani igu daa maase gabadha ku tiraahdaa kooxdaada inay tahay waxay bilaabeen dharbaaxay ku jiistiraado laakiin dharbaaxay iska qabto ku yiraahdaa makeera miskiinka iskuul ku soo dharbaaxaysay iyada ii malaynaysaa wuxuu soo qarinaya ayaa wax la soo hadashay gabadha shaqaale wahayd yacni inay markabka dusheeda ka waardiyeyso loogu talagalay gabadhaas waxay ku tiraahdaa kooxda GHQ diyaar galoobeen qaraxayna soo fasaxi rabaan ee u sheeg gaay markaas wiilku soo carray wuxuu u yimaada gaay wuxuu ku yiraahdaa qaraxu soo dhow yahay ee fadlan ka hortag maasuu ku yiraahdaa aniga igu daa qoshayga kadib wuxuu yimaada gabadh wuxuu ku yiraahdaa kaali romance aan jilno oo markabka xagiisa saraan fuulno maasuu ku yiraahdaa romance ma baahni maasuu ku yiraahdaa waxaan ku sameyn doonaa ad waxa ku cajabiyana mari kadib wax bilaabanaysa gabadh soo raacdo wuxuu ku yiraahdaa indhahaga isku qabo maasuu ku yiraahdaa sabab maasuu ku yiraahdaa waxaan ku sameyn doonaa sixir yar ku cajabiyo waxa qurux badan aan heli doontaa ee aad indhaha isku qabo 3 2 1 kadib gabadh wax isku qabataa indhihi markuu 0 ama 0 dhaho waxay bilaabeen gabadh indhaha kala qaato waxa hor taaga buulkii shuuna wax bilaabeen awoodiisa isticmaalo wuxuu ka soo saaraa qalab waxa dhan qalabkii uu adeegsado gantaale ku soo wadeen kadib waxa qalabku ku xakameeyay gantaaladii gabadh waxa dhulka ku dhacday suuxdo markaas waxa dhacda markuu xakameeyay kooxii GHQ inay isdhiib waayeen ay dhahdaan ku fasax mar labaad kadibna gantaaladii hadan mar labaad soo ridaan waxa dhacday in hadana uu wiilka uu xakameeyo markaas hadan kuwa kala saddexaad uu soo ridaa hadanku saddexaad waxa xakameeya dadkii waxay bilaabeen chess-kooga iska bilowdaan oo mid kasta lamaaniisa ula jeeso waxa dhacay xagaas rash yacni dadku u maleynayaan rash in qarqarxin laakiin hortooda waxa laga badbaadinaya dhimasho oo qof ayaa hortaagan oo badbaadinaya dadkuna waxay maleynayaan rash la qarqarxinayo waxna iska wataan chess-kooga oo joog sax iska jiraan markaas gabadhu waxay soo carartay waxna ku tiraahdaa shuu adoo waxa tahay wiil dabeecad fiican waxay badan dhabarka ka dhigto masax soo gashay inoori waxna la yaab waxna dareenta maseer maasa wiilka shuu wuxuu yiraahdaa iga fafalna
markaas waxa dhacay ninka gabadh ay socotay tiraahdo safar ayaan gali doonaa ee aan ku salaamay wiilka show waxaan soo daadagay wiilkaasna qisadeen xagga dambe kaga soo biri doonaa ee la xifdiya wuxuuna ku yiraahdaa wiilka show waxa tay saaxiibkayga iskuulka ee saaxiibsay tahay ana maana asxaabtay iskuulka xiriiriya wuxuu ku yiraahdaa saaxiibkayga iskuulka aan ku xiiseysay tahay lejanow wuxuu ku dhahaa fiicanay lejan ee waxa ka adaa lagu waayay yani sheekada dhalinyartayga isla galaan markaas waxa dhashay in dhabarku ka dharbaaxay wiilkii waxa wiilkii inuu damaqado yiraahdo baleeyo dharbaaxo xuma waaxay dharbaaxiisan kuleelka laakiin wuxuu ka fahmay in kaftan tahay wuxuu banays ka soo dhaqaaqo maas wuxuu kulma gayna wuxuu ku dhahaa waxaan u baahanahay awood aad u sareysa oo qof noo ilaaliyo u baahan body karno noqda maas ku dhaahdaa marka maxad ka wadaa maas ku dhaahdaa dadka rixlada galida ama safar gali doona waxa rabay inaan u noqoto body car ama cid u ilaaliya meel tagyo meel ka baxsan ay tagi doonaan ka warhay maas wiilku wuxuu ku dhawaayahay wuxuu balan baastiis ka cusii cuno kooxina waxa dhacay in bada u soo dhaqaaqaan oo iska dabaashaan iska nastaan markaas wiilku wuxuu bilaabay inuu dala duruga ku taagto oo yani seer kala bixis raahdo markaas waxa soo marta wadada Inori oo yani dhar khafiif ah xiran markaas Inori markuu arko indhiisu way ka jeesan waayaan war Faisal oo indhaha gala maxaa ka khaldan ma gabadh baa kugu cusub war Sofaan ay gaams adigu gabadha meel aan ka arkin baa anigu ka arkayay markaas isaga sheedo wax ka aragtay gabadh waxna biloon ku saarto ku tiraahdo kana soo dabaalane na xish buu ku yiraahdaa dhanka kale ninkii saaxiibka ahaan shuu wuxuu bilaabay inuu sawirto yani gacmihiisa ku sawirto kaamira la'aan buu ahaa laakiin maskaxda ka sawirtay ninkan screenshot uu maskaxan uga qaatay wiilkii shuu ay saaxiibka isagoo wadada iska maray wuxuu arkaa qubacada ama koofiyad duuleysa kadib qubacada ama koofiyad uu qabtaa wuxuu yiraahdaa yaa iskale koofiyada maasa meesha waxay matay gabadh curiyaan tahay xaqana waxay u imatay inay yani wax shirqool ama yani qorshe ay ka leedahay waxay ku tiraahdaa maasan tahay kadib wiilkii waxay bilaabeen warka uu siiyo koofiyadii markay ka soo dhaqaaqaan waxay tiraahdaa wiil yar miskiin u eegyahay laakiin waxaan ka shakisan inuu ka mid yahay kooxda GHQ markaas gaay iyo wiilkii kale shuu waxay maadaan qabrigaas waa qabrigii hooyadii wiilkan shuu wuxuu ku yiraahdaa hooyadii uu duceynaya wuxuu ku yiraahdaa waxaan gali doonaa maanta qasri waxaan soo xadi doonaa aalad aad u culus oo aad u awood badan ee soo ogo muuse masuu ku yiraahdaa waa yahay Faisal marka kale wiilkii gaay wuxuu la hadlayaa gabadhii markaba isku soo barteen markaas waxa anime isku jiraa ninkii raa kibirka badnaa wuxuu maadamay shaqaalis wuxuu ku yiraahdaa mudane masuu ku yiraahdaa maxaa rabtaa waxa dhacay ninka shaqaayo dhagta wiilku wax ugu sheego kadib waxa wiilku inuu xidhaado macquul ma noqonaysa taasi waxa ta dhagta ugu sheegay aniga marka xitaa xalqada daawanimo maqlin laakiin gadaayna ka fahmi doonaa waxay tahay waxaas habeenkii markii la gaaro waxa dhashu inuu arko ninkii saaxiibka ahaayeen iyo gabadh Inori oo la sheekaysanay meel iska fadhiya kadib wuxuu baan soo daba galo wuxuu baan khaaso ka wax ka sheekaysanay uu eego maasa ninka wuxuu bilaabay inuu tuso yani sawirada xeebta iska soo qadqaadan fiidiyoo kadib waxa inuu xakameyn kar waayo wuxuu soo sarkaa wuxuu ku yiraahdaa Inori ana wuxuu isagoo leh ay wiilkii waxa dhayn soo sarkaco shuu wuxuu ku yiraahdaa nin xisho ku yiraahdaa nin ay kaaga soo horeeyay saas kuma wuxuu ku dhahaa gabadha Inori ka fogow kala iskaga fogow maasa ninka wuxuu yiraahdaa sabab aan uga fogaanaya waan jeclay gabadhan intuu hadalay waxa wiilkii shuu isticmaala awoodiisi qalbi wuxuu ka soo saabtaa kooxin si kale waxa dhayn imaadaan meeshii waxa wiilkii ku yiraahdaan iminkan dagin hadaba qorshe noo soo dagay ee soo caro dhaqso kadib waxa dhayn qorshe ay bilaabaan waxaan dhacay wiilkii inuu furo qasnad kasta ama wax kasta ka soo baxin uu furo oo awoodiisi isticmaalay ama qalabka raxna soo isticmaalay kadib waxa kooxina soo wada galaan meeshii qasriga ahayd ee lagu qarinay aalayga ama yani aalada yar laakiin markay soo galaan waa siidu kamin shacri albayt bacrabtu tiraahdaa markay soo galaan meeshii waxay ku arkaanba wixii yaray ku soo daaleen intaas oo dhan yani aaladii ay ku soo daaleen meesha ma wabtaalo mar hore ayaa laga qaaday waxaan arkaynaa ninkaas duqa wuxuu dul taagan qabri waxaan arkaynaa isagoo haysta aalad wiilkan gaay u raadinayay wuxuuna ku yiraahdaa gaay maskax ka weyn ba ka badaysa yani qof maskaxiisa weyn tahay oo qofka ka maskax badan oo yani ka daaweyn uun ba ka badiyay maskaxiga yarka kaama badinayso ku yiraahdaa saaran subaxin laga markii la gaaro waxa wiilkuna soo sarkaco wuxuuna ku yiraahdaa wiilka shuu maxaa xalay ugu dhacay hal mar ma sooxay masuu ku yiraahdaa waxa ku yeelay ma garanayo anaga basaas suuxay oo xalay leelba meesha ku dul taagnaa oo dhaxanta ka eelinay waraabaha masoo ku raado maasantii wuxuu bilaabay wiilkii in yani marxabeeyaan Israa'iil galiyaan wuxuu ku raado gabadha Inori adiga ku jeceshay shuu aniguna kaaga haray hadda laga bilaabo adiga ayaa u qalmo ku raada masoo ku raado waxa dhacay wiilkii shuu inuu gabadha jaceylkiisa ay soo uga soo cusnay wiilkii yar oo ka reebto haddaba maanta animiga xalqada waxaad ka faa'iiday in maanta qof aad asxaabtiin ama yani iskuultiin ama isjaaratiin hadduu gabadha jeceshay ka dul qaado wiilow gacan hoo qaadeen yani afkaad wax kaga soo dhacsan kartaa ama gabadha jacayl wiil lagu abuuraa oo adigu jecelaadaysan oo kaaga hari doona mustaqbalka isagana iskuma dhacaysiin adigu naftaada yani khadar ma gelinayso sidoo isagana yani waxa laga yaabaa inuu ku dhaawaco marka waxaan kaaga digaya haddii gabadh laga dul qaado in iska hadhay gabadhaas ama aad maskax u adeegsatid aan yani si wiilkaasina uu kuga caroon gabadhaasina yani ayna kuga caroon ama waxa laga yaabaa gabadhaas yani u dagaalamaysid darteedba in hadhaadna kugu daadiso marka iska ilaali asxaab waxyaabaha noocaas oo kale way ku badan tahay dhalinyarta waa saaxiibkayga dul qaadida gabadha yar oo socon jirno oo niyo min ogaada gabadh wiil hadduu saaxiibka gabadh jeclaado weliga xitaa gabadh si kasta qurux badan tahay iskugu dooran si kasta qalbiga u gasho waa saaxiibka baa leh
u hadhaysaa uga hadh haddaba inta yar kaftanka ayaa saxab nagu soo gabagabeynaa muuqaalkeena maanta fadlan hadaa muuqaalku cajiyo like tan oo saar subscribe ta saar maca salaama wa shuufakum fi xalqa jaaye